haddii ay kubadda cagta iskuul ahaan lahayd maamulaha iskuulka waxaa noqon lahaa Sir Alex Ferguson, macalinka sayniska waxaa noqon lahaa Pep Guardiola, macalinka xisaabta waxaa noqon lahaa Jose Mourinho, macalinka taariikhdana waxaa noqon lahaa Arsene Wenger. ardayga caanka ah ee ku faano waxyaabaha maadiga ah aadka ugu weyn fasalka Ronaldo ayaa ahaan lahaa ardayga aamusan ee aadka u caqliga badan balse aan jeclayn dabacsanaanta Messi ayaa ahaan lahaa ardayda leh farshaxan wacan oo ay jecel yihiin dhammaan gabdhaha iskuulka. Neymar Jr iyo Memphis Depay ayaa ahaan lahaayeen ardayda mar walba ka maqan iskuulka xanuun dartii. Gareth Bale, Eden Hazard iyo Ousmane Dembele ayaa ahaan lahaayeen ardayga had iyo jeer iskuulka jooga laakiin maqana jooga ah. Timo Werner ayaa u ahaan lahaa ardayga ka soo jeeda qoys qani ah oo had iyo jeer ka caawiya ardayda saboolka ah ee fasalka cunto iyo fadhi. Rashford ayuu ahaan lahaa ardayda had iyo jeer ku kaftama fasalka. David Luiz iyo Marcelo ayay ahaan lahaayeen ardayga had iyo jeer bedeshay iskuulka. Zlatan Ibrahimovic ayuu ahaan lahaa xoogsatadii iskuulka ee jecel inay beegsadaan ardayda aamusan ee iskuulka. Pepe iyo Diego Costa ayay ahaan lahaayeen ardayga sida adag u shaqeeya balse mar walba guul dareysta. Fred ayuu ahaan lahaa caruurta ku cusub fasalka ee mar walba u maleeya inay ka wanaagsan yihiin wiilasha ka waaweyn. Haaland iyo Mbappe ayay ahaan lahaayeen ardayga aadka ugu wanaagsan xisaabta iyo sayniska balse aan jeclayn inuu buuq ka sameeyo ama ku faano. De Bruyne ayaa ahaan lahaa ardayga is-hoosaysiiya oo ka soo jeeda qoys sabool ah oo aad u wanaagsan jecel yahay qof kasta. Kanti ayaa ahaan lahaa. adigana maxaad ku darsanaysaa qodobada aan soo sheegnay maxaa ka qaldan?